qofka gabadha ugu quruxda badan leh inaan ahay Soomaali gabadha ugu fiican inaan aniga ahay nafsadayda taas ka dhacsan alxamdulillah ilaahay ayaa ku mahadsan marka waxaa la rabaa ina is aamintid adi bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda quruxda badan meel walba iga daawanaysaan ku soo dhawaada YouTube channelka Aamina Macalin waxaan idin leeyahay daawadayaal please channelka noo saar subscribe de suulka sare u taag commentiyadiina quruxda badan la soo wadaagay insha Allah maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno mowduuc ku saabsan kalsoonida maadaama hore aan uga soo hadlay xiriirka iyo dhalinyarada mowduuc jaceelkan aan wax ka taabanay maanta waxaan ka hadlaynaa bal kalsoonida uu qofka bini aadanka ku kalsoonaan karo nafsadiisa maxay u horseedi kartaa mowduucaas ayaan ka hadlaynaa insha Allah waxaan ku bilaabayaa marka la dhahayo jaceelka waa hore ayaan uga soo hadalnay in uu yahay qof adi ka heshay ama dooqaagi noqday ama hadalkiisa qofkaas aad jeclaatay ama si uu ku cajibiyay laakiin waxaan ka hadlaynaa kalsoonida iyo jaceelka maxaa ka dhaxeeya ayaa maanta ka hadlaynaa insha Allah kalsoonida iyo jaceelka waxaa ka dhaxeeya waxyaabo badan tusaale ahaan qofka adiga aad jeceshahay ama ku jecel hadii aadan ku kalsooneen taas micnaheedu waxay tahay wax jecel la meesha sameeyala amuura kale ayaa ka socdo marka kalsoonida iyo jaceelka waxaa ka dhaxeeya xiriir weyn oo inaba caadi ahayn maxaa yeelay waxaa la rabaa qofka adiga aad jeceshahay ama ku jecel in aad ku kalsoonaatid tusaale sababtee ayaa qofkan ku jeclaatay maxaad ku dooratay hadii aad jeceshahay maxaad ugu kalsoonaa weysay su'aalaas ayaa wanaagsan inaad isweydiiso waxaa arkaysaa inta badan dhalinyarada waxay ka cawdaan kalsoonida maxay tahay marka waa inaad aamintaa qofkan hadaladiisa waa inuu aaminaa hadaladaada ballamaha oo kale waa in la oofiyaa laakiin wax walbo inay boqolkiiba boqol u dhacaan marnaba suurtagal ma noqonayso maxaa yeelay adduunyada qabyo lagama weynaayo sidaas darteed haddii balan inta la dhigto la is arki waayo haddii qofka intii wax ka sugaysay uu ku keeni waayo haddii shaqo inta u dirsatid uu ku qaban waayo taas micnaheedu ma ahan inaadan isku kalsoonayna inaadan isjeclayna sababtoo waxa la rabaa duruufaha noloshaada ku xeeran in aad fiirisid ama qofkan duruufaha ku xeeran waxa isaga qaldan dhalinyarada marka kalsoonida jaceelka waqtiyada waxqabadka waxyaalo badan isku walwalaaqan waxa arkaysa dadkii ku dhaay jaceyl ma jiro maanta walaahi qof la aaminayo ma lahan qof kasta wuxuu rabo iska sameynaa wuu jiraa jaceyl waa hadda adiga aamintid weeyaan professor jaamacadda noo dhiga Gaalkacyo University Juyo ayaa wuxuu dhihi jiray naftaada ku kalsoonoon naftaada marka adiga isku kalsoonaatid aad is aaminsan tahay ina adiga tahay qof bini aadan ah oo adoon ah oo Allah subhanahu wa ta'ala samaystay oo adoonnimadii iyo hadafkii nolosha lagu keenay adduunyada inuu aqoonsado inuu Ilaahay caabudo in yaani qadarka Allah uu ku samro wixii ku dhaco in yaani maxaa tiraahdaa wax walba uu helo haduu wax waayo intaba uu ku samro taasna waxaad heli kartaa naftaada inaad ku kalsoonaatid okay tusaale yar aan siinayaa qof ayaa isjeclaadeen waad isku dhacdeen ama waaba kala tagteen waad kala guurteen maca salaamo nin walba hortiisa qasab ma aha in dil isjeclahay fiina abada la joogaayo markaas ina niyad iska jibisid ay dhaadid Allah aniga maxaa saani ugu dhacday qofkan aan jeclaado muxuu igaaga tagay waxaan farka muuqaal cajiib maalmo dhow aan daawanaa YouTube-ka maxay aniga saan igu dhacday muxuu mar walba qofkan igaaga tagaaya qofkii aan bartay muxuu iinacaaya ma ahan adiga ina qof xun tahay ma ahan ina fool xun tahay ma ahan inaadan jaceelka u qalmin ma ahan laakiin ujeedada ayaa waxay tahaybo in aad nafsadaada ku kalsoonaatid in aad is ogtahay horta maskaxiyan isku ogtahay qofkan haduu ka tago iska tag adigana qof kale helaysaa xaqiiqo waay taas adduunka wax la soo ogaado waaye markaad noloshaada ku kalsoon tahay aniga tusaale iska soo qaata Aamina ahaan waxaan aaminsanahay inaysan qofna ay qurux badneen daawadaasheeda really adduunka inta qof bini aadan Ilaahay abuuray qofka ugu quruxda badan leh ina aniga ahay
waa la iga fiicnaan karaa culimadoo kaleeto iyo dhaqaatiirtoo kale cilmigay barteen waan ka fiicanaa ma dhahayo laakiin qofka gabadha ugu quruxda badan leh inaa ahay Soomaali gabadha ugu fiican inaa aniga ahay nafsadeeda taas ka dhacsan alxamdulillah ilaahay ayaa ku mahadsan marka waxaa la rabaa ina is aamintid adiga nafsadaada inaad aamintid Allah subhanahu wa ta'ala ee ku abuuray ina u mahad celisid aad alxamdulillah ilaahayo aamina iga dhigtay alxamdulillah magacaygu waa magac qaali ah magacayga qurux badan ama iga fiican adduunyada ilaahay subhanahu wa ta'ala qof dumar ah oo horta aniga aamin ahaan iga fiican ma ayna isku kiin amaanayo laakiin kalsoonida nafteeda maxaa yeelay nabiyullaahi maxamed alayhi salaatu wasalaam hooyadiis waxa la jiray aamina ma fahamtay marka magacayga ayaan horta ku kalsoonahay alxamdulillah waxaan ahay qofka ugu nasiibka badan xaga magac bixinta ee gabdhaha Soomaalida samiyaasheena waxa leeyahay ila soo dhawaada intii aamina la dhaho farta taag commentiga ku soo qor commentiga dhan aaminaha laga dhigo maanta insha Allah ma fahanteen marka ina naftada ku kalsoontaa la rabaa gabdhaha si qaas ah ula hadlayaa muuqaalkan wiil aad jecleedeen wuu ka tagay fiir farteeda maxaa ku qoran loof waaye maxaan cilaankaas ugu soo sawiray in aan ka hadlo maantay mawduuca jaceelka hal qof aad jecleedeen wuu ka tagay okay waxaan raadinaynaa loof kala raadinaynaa bal hadduu farteeda loof kala ku jiro qofkii wajadido mid kala heshaan dana okay marka muuqaalka maanta aan rabo inaan la wadaago farahaygan ku soo qoray marka hore waxa ahayd kaliya 0 waad arkaysaa sama kaliya ayaa ahayd qofaas jeclaateen wuu ka tagay 0 no mati 0 qof labaad ayaa helaysaa laakiin haddaad adiga aamintid inaad 0 tahay ogow 0 ah noqonaysaa adduunyada saas waa qofaa jeclaane waa weyne qof kala jeclaane waa fahanteen qof as jeclaanaysiin waa kala tagaysiin 0 haddana qof kala hele waa marka adiga aad aamintid waxaa laga yaabaa gabaray ama wiilow gabadhan labaad ee as jeclaateen inayba gabadhii hore kaaga fiican tahay ama wiilkan as jeclaateen gabaray ma ahan anina qofna gooni u ataagayo laakiin waxa isku balance gareenayna nolosha bini aadanka lab iyo dhadig ilaahay ayaa isku abuuray way isku baahan yihiin qofkan as jeclaadeen marka kala tagteen qof kala helaysa ku kalsoono qofkan waxa laga yaabaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nimco iyo barwaaqo ma ogid nimcooyinka ilaahay uu ku keedinayo hadaa tahay adoon ilaahay abuurtay wa inta udu ni'matallahi la tuhsuha ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay nimcadeyda ma tirin kartaan marka nimcooyinka ilaahay ku siiyay qof as jeclaadeen waa kala tagteen والله الدنيا أنا محاوى يعني إسلا هذا استرس عين هو استرس وحلا مجرى الدنيا ده قفك بني آذن كأه إنه نفس دي سكوك لصونا هذا مرك وبرته ومركز تو أطفوشا جرنجرة ظهر مركا نفس هذا مركا ها اسمه رجنين إلهي وحكون أني مع ذا حس مع ذا كشاكة وحي أكوسي يقوم هذا علي سو جس قفا استعلادين وقتكتي نفسدا ده مرجنين ها اسولولين بلاي iyo nasiib darro iyo waxyaabo kale ha aaminin okay ka jafjaf adigana sidaadii qurux badan tahay sahradaadii tahay xaliima tahay suudiya tahay najma tahay xuseena tahay xasana tahay abdiya tahay aliya tahay xasana tahay maxamed kaaga tahay muxidiin kaaga tahay wax ka halaabayo oo ilaahay abuuray ma jirto ما قرأتي يعني waxaan rabaa inaad nafsadaada ogeysiisid in aad ku kalsoon tahay qadarka alle in aad heli kartid qof kaleeto oo ku qalmo oo adiga laga yaabay inuu ku siinayo jacayl aad u fara badan muuqaalada soo socda waxaan uga hadli doonaa hadii ilaahay idmo fikirka dhalinyarada iyo jacaylka sidoo yahay hadii ilaahay idmo adinkana commentida igula soo wadaaga muuqaalada jacaylka ku saabsan waxyaabaha aad jeceshiin inaan ka hadalno waxaana fiican markasta wax markaan ka hadleena inaan dhaqankeena ku saleeno hadii ilaahay idmo marka muuqaalkan maanta waxaan jeclaystay inaan idin kula hadlo gabaray isku kalsoonow wiilo isku kalsoonow hadii jacaylkaaga oo ka qaraaraada kaaga dambaa ku macaanaanay seen ku dhahay
jaceelkaaga hore hadduu kaa qaraaraaday kan dambaa kuu macaanaanay kii hore hadduu kuu macaanaaday uu kaa halaabay taas micnaheedu ma ahan dambe inuu kaa qaraaranayo waxaa laga yaabaa midkii mid kasii macaan badan oo kasii qurux badan oo yacni ilaahay subxaana watacaala midka kugu talagalay ayaad helaysaa aamin naftiina ku kalsoonaada joojiya walwalka faraha badan kalsooni darada oo nafta xaggeeda wax kale idin maystaan qofa isbaranaysin waswiska iyo shakiga iyo waan ka hadli doonaa insha Allah dadka laga shakinayo qofkan qof binaadan 9 bilood ku dhashay hooyo aabba dhaleen adoo kaleeto waay sida lagu soo koriyay si ka fiican ama si kale ayaa laga yaabaa in asagana loo soo koriyay qof walba wuxuu wataa dabeecadiisa wuxuu wataa dhaqankiisa adigana waxaad wadataa dhaqankaaga iyo dabeecadaada